كحروبي عن كهينتي دولة الإنجليز وقوي الصومالية وحلا جساري والأهم وقوي الصومالية على كي الصومالية يقولوا جاها لها تكتعد إيش أنت جيس كاسو اللي بيجي أنا اللي بيسميه كونفورت الصومالية حرية كهر أهانا كي وجود ديار كاها ومدة الصوماليات إنه النقطة علنك قرنك صوماليات مركا حرية اللقاء كل شوي كل سنة بقول يوم وحا كحروبي عن كهينتي دولة طليانية كونفورت الصومالية وحنا لقى صاري علنكي بلوغاها لهانا حديك تعد إيشنت جيس له oo ahaa kii 26 June 1960 laga saaray waqooyiga Soomaaliya haddaba waxay taariikhdan marxaati u noqonaysaa in Soomaalinimadu ka horeysay kumanaan sanadood gumeystihii kala qoqobay in halganka gobannimo doonku ummadda Soomaaliyeed umidaysnaayeen iyagoo isticmaalku dhex joogo kuna gaadheen xurriyad taama in aanay jirin cid Soomaaliyeed oo gaar ah oo lahay dawladnimo gaar ah oo leh dastuur calan astaan qaran oo ka horeysay tii 60kii in aanay jirin laguna tilmaami karin halgankii ummadda Soomaaliyeed ku gaadhay gobonnimada loona soo maray dhibaatada aan la ilaawi karin inuu ku yimi caadifad taasoo nasiib darro ah taariikh xumana ku ah cidii ay ka timaado qodobka afraad wixii loo gaadhay 1960kii waxaa bilowday ummad Soomaaliyeed oo xor ah lehna dawlad Soomaaliyeed iyo dastuur Soomaaliyeed oo loo dhanyahay 1960kii ilaa 1969kii waxaa soo maray ummadda Soomaaliyeed dawlad civil ah oo doorasho ku timi muddo 3 xilli ah hogaankana ay u hayeen mudane madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan iyo mudane madaxweyne Cabdirashiid Cali Soomaali waxaa lagu tilmaami karaa waqti ummadda Soomaaliyeed ay soo martay dawladnimo ay u dhan tahay October 15keedii 1969kii waxaa dil toogasho lagu dilay madaxweynihii markaa talada hayay Cabdirashiid Cali Soomaali waxayna ahayd nasiib darro iyo taariikh madow October 22keedii 1969kii waxaa inqilaab ciidan ku muqunsaday taladii iyo dawladnimadii Soomaaliyeed madaxweynihii Maxamed Siyaad Barre iyo saraakiishii hormuudka ka ah halgankii military ee kacaanka u xoobsiibtay wuxuu talada ummadda Soomaaliyeed hayay 20 sano ilaa ay ku burburtay dawladii Soomaaliyeed 20 sano ee kacaanku wuxuu lahaa waayo badan kuwa waxqabad iyo kuwa maamul xumo dhibaatadii baahday waqtigaas ayaa sababtay mucaaradad dalka dibadiisa ka dhaqdhaqaaqa waxna ka geysta burburkii qarannimada Soomaaliyeed kuma dheeraanayno 20 sanadood kacaanka dhib iyo dheef noomana muuqato in cid gaar ah loo tirin karo wixii laga dheefay 20 sano intaa kadib markii dawladdii 20 sanadood ka baxday meesha waxaa ummadda Soomaaliyeed la soo darsay dhibaatooyin geysiiyay burbur dawlad la'aan sababay colaado qabiil barakac iyo cawaaqib darrooyin aan la koobi karin intii burburka dalku jiray waxaa ummadda Soomaaliyeed la isku dayay dib u heshiisiino iyo in dib loo soo nooleeyo qarankii Soomaaliyeed
waxaana ka mid ahaa shirkii carta oo lagu dhisay dowlad kumeel gaadha waxaa kaloo ka mid ahaa shirkii Eldoret Kenya oo iyana lagu dhisay dowlad kumeel gaadha oo iyana bedeshay tii carta kuwaasoo soo dhaweeyay inay maanta timaado dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed. sidaa awgeed waxay noogu muuqataa in raadadkii burburka ee lahaa colaadda qabaa'il iyo kuwa kooxeed in aan cidna lagu gaari yeeli karin aslaaxuna uu ku jiro walaaltinimo, islaamnimo, midnimo iyo dowladnimo iyo dowlad wacayga. qodobka shanaad 1991 markii dowladdii Soomaaliyeed meesha ka baxday waxa waqooyiga Soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka Burco, Berbera iyo Hargeysa soo galay jabhaddii SNM iyadoo hore u soo gashay 1988 Hargeysa iyo Burco kadibna ay ka saareen ciidamadii dowladdu iyagoo ujeedadoodu ahayd inay lumiyaan deganaanshaha dadkana kiciyaan. 1991 SNM waxaa maragma doonta ah inay ka geysteen deegaanada Sool, Sanaag, Cayn iyo Awdal dhibaatooyin iyo tacadiyo la xiriira dil, xasuuq, barakicin kuwaasoo si cad loo hayo bartii iyo tiradii dad ee waxyeelada la gaarsiiyay. waxaa kale oo maragma doonta in waqtiga SNM oo u xoogsiibatay maamulka hadda Siilaanyo ay xoog ku joogaan waqtigan ay SNM xoog ku joogaan deegaamada Sool dhibaatooyin isdaba joogana ay ku hayaan oo leh xarig, dil, waxyaabo iyana aynu wada xarig, dil waxaa kaloo aynu wada ogsoonahay tacadiyada xasuuq ee ay ka geysteen Kalshaale, Sool joogto, Meygaagle iyo guud ahaan deegaamada Buuhoodle. tan iyo 2005 lama ilaawi karo dhibaatooyinkii uu maamulka Siilaanyo ka geystay deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn waana wax laga xisaabtamayo bulshada caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedna aanu ogeysiinayno. waxaa mar walba laga been sheegaa bulshada waqooyi ee aan ku abtirsan SNM ay ka beri ahayd shirar lagu gaadhay wax ka baxsan wada hadallo heshiis iyo xabad joojin waqtigii 1991 iyo intii ka dambeysay. qodobka 6 waxaanu tilmaan ka bixinaynaa una soo jeedinaynaa madaxweynaha Soomaaliyeed iyo guud ahaan hay-adaha kale ee dastuuriga ah ee Soomaaliyeed in loo abaaro wada hadallada lala gelayo maamulka Siilaanyo sidan oo aanu aragno inay tahay sida kaliya ay ku soo dhawaan karto maslaxadda Soomaaliyeed. number 1 iyadoo la raacayo dastuurka Soomaaliyeed qodobkiisa 4 xubintiisa 3 oo qiraysa gobonnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya waa muqadas. iyadoo la raacayo dastuurka Soomaaliyeed qodobkiisa 4 xubintiisa 3 oo qiraysa gobonnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya waa muqadas lagumana xad gudbi karo. isla qodobka xubintiisa 2 oo iyana qiraysa shacabka Soomaaliyeed waa hal lamana kala qaybin karo. isla sidoo kale qodobka 7 xubintiisa 2 oo isna ay ku caddahay dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa laguna xadgudbaan lamana qaybin karo.